magaalada Minneapolis ee gobolkan Minnesota ayaa waxaa lagu qabtay kulan lagu taageerayo waxbarashada sare gaar ahaan jaamacadda Nugaal ee magaalada Laascaanood. kulankan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay waxgaradka iyo aqoon-yahanada jecel waxbarashada kana shaqeeya horumarinta aqoonta. kulankan ayaa waxaa ka hadlay macallimiin ku xeel dheer waxbarashada oo laga yaqaano gobolkan Minnesota iyo guud ahaan Soomaaliya, waxa ayna xuseen muhiimiyadda ay u leedahay waxbarashada bini aadamka. hadalladoodana waxaa ka mid ahaa sida tan. aad baan u salaamaynaa walaalkeen Professor Cabdirasaaq Maxamed Aadan, khayr Allah siiyo, waan soo dhaweynaynaa. dhammaan walaalaha ka soo qayb galayna waxaan leenahay jazakumullahu khayr. walaalayaal, marka la yiraahdo dad waxa loo qabto waa hawl culus. waliba marka la yiraahdo dhinaca waxbarashada waxa laga qabto hawshu way sii cuslaanaysa, waayo wax la barbaariyo oo garaadkiisa iyo mustawihiisa iyo levelkiisa kor loo qaado waxa ugu qaalisan uguna adag waa bini aadam. waxbaridiisa, soo saaridiisa, wax la dhiso oo kor loo qaado oo bini aadan ka adag ma jiro. waliba haddii la yiraahdo meelaha dhibaatooyinku ay ka jiraan sida Soomaaliya oo kale, waxa laga qabto oo dhowr iyo 20 sano dawlad wax ku oola aan arag. haddii la yiraahdo waxa laga qabto hawshu way ka sii darantahay, hawl aad iyo adag weey. waxaan leenahay walaalkan Cabdirasaaq la foole iyo inta la midka ee wadanka qaybihiisa kala duwan Soomaaliya gaar ahaan jaamacadaha, iskuulada, macaahidda diiniga, waxbarashooyinka kala duwan ka sameeyay waajib in wada saaraabay dhabarka u riteen. khatar fara badan ayay madaxa u dhigteen oo inagu inteena fara badan laga yaabo markay ugu roon tahay inay inagu tahay maqal. waxaan leenahay marka jazakumullahu khayr, ilaahay ha idinka abaalmariyo, hana idinku garab galo. arrintan waa arrin runtii ka mudan baashan siyaasaddu ayna wareerisay. waa waxqabadka ummadda oo kor iyo hoose. waxaad ogtihiin haddii ummad la rabo in lagala dagaalamo fakri, loon istiraatijiga loo dhigaa waxaa weeye waqtiga dheer, banaanka dheer oo loo dhigaa waxaa weeye ummadda in wax la baro. ummaddaasu hadday wax barato way ka badbaadaysaa waxyaabo badan oo imika dhib inagu haya haddaynu Soomaali nahay. la foole waa geesi ka geesisan koox badan oo halka fadhida aniga Cabdi Dheer aan ugu horeyno. waana nin ummadda wax u qabtay. arrintan waa arrin mudan in wax laga qabto oo sida uu sheekhu sheegay Sheekh Cabdullaahi Ibraahim baa hadalka iga horeeyo hadalkii dhameeyayba noo leedahay. waxa la yiri mar hore waxbarashada macallimiin ahaan ama education aanu macnayn jiray ama naloo macnayn jiray, wuxuu mar hore lagu tilmaami jiray in uu yahay marka lagu soo koobo way of life ka nolosha lagu sameeyo. waase laga soo durkayo waxbarashadu tilmaan kale ma leh iyada life ee wax life-ka lagu gaaro wax lagaga qabsado maaha, iyadii baaba nolosha jirtaba oo xume iyo same waxa lagu kala garto. hadday tahay oo fure u tahay haddana iyadii baa noqonaysa. meel walba iyo xilli walbana macno iyo tayo gooniyay ka yeelataa. maanta dalka caynkaas aynu ognahay sida uu yahay iyo wixii ka burburay, aynu ognahay xilliga uu joogo, aynu ognahay waxa uu soo dhex maro oo dhibaatooyina. waxbarashadii macnihii ay 70kii iyo 60kii iyo u lahayd ama aan ka soo durkay ama 80aadkii mid ka duwan bay u leedahay oo ay tahay waa badbaadin aynu ogeyn bani aadamka oo sidii loo tilmaamay
loo tilmaamayay waxa wax la geliyo kan ugu roon waxa la toosiyana kan ugu adag waxa ugu complicated san ee ugu la yaab badanna ay tahay ma aha tamarta aadmiga ee maskaxda aadmigu ay tahay qofka macallin la yiraahdona waxa loo diray maskaxda aadmiga marka meelaha ama waxa adduunka jira waxa ugu hawl badan marka aad tiraahdo ayaan wax ka qabanaya oo wax ka noqonaya ayay tahay tamarteeda iyo la yaabkeedu haddaba sidoo kale xafladan gunaanadkeeda iyo gabagabadeedii ayaa waxaa warbixin dheer soo jeediyey Professor Cabdirasaaq Lafoole oo isagu ah ninka qaybta weyn ka qaatay dhismaha iyo maamulka jaamacadana gacanta ku haya ayaa waxa uu warbixin dheer ka bixiyay xaaladda jaamacadani ay soo martay iyo waxqabadkeeda iyo deegaanada ay u adeegto Professorka ayaa waxa uu ku dhiirigeliyay bulshada deegaanadaasi haddii ay rabaan in ay wax badan ay ka bedelaan noloshooda inay tahay inay maalgashadaan waxbarashada ayna tahay waxa ugu muhiimsan ee la doonayo in deegaankaasi dadka ay ku foojignaadaan أنا إسلام هاي نرشوا وكمبوننتس نرشوا أقسام لنعيرة نرشوا إلى هاي صدق شيء كل حتى بدنا نعمل لبعض ولا على politics economics هي social and development مركب politics عبا كل مو هاي involved شكل ملك هو لوبدي business كا economics كا نفتح وكحران أو تدخل على شقي سنة يا نقول عارف مشو كهلي سجى بعيد من توجيني قيبتنا وقيبت آد موديل ضياعي ولا وياك قيبتنا وأرغون وأرغون وي مركب قيبتنا بالعيد وسوي شيء ستو أو كقيب قارته قفك السياسي إنه قاعد وكسب حياة مركب وجامعات يتعلم يمعلم في عنه هاي هلا دكتين ودك الآن شغلنا ولا هارفورد ينين لوير أقوم بعمل ملانيا وسوي استعجال هالشيء ينقول غير هاي من الهويين سيدا دراجي هذه أينا هي ماشي لقوا برنا political science and economics يمحوها social كي عن إسلام هاي ولي سياسة بينا يدقالينا ويقولنا يعني الله خد منانا مركا ينكم مع مركبان فريبني الله يبارك ليو شاء TV-ga Somalisat Axmed Laari magaalada Minneapolis